بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور دواد 10 كان استغلت ماده مايكروسوفت SQL Server 2017 كاسو ان كسو قادن دونو select distinct. هذا select distinct waxa loo isticmaalaa in ku soo celiyo distinct value yani hadii column kan aad distinct ugu doonaysa ay ku jiraan waxyaabaha isku soo noqonaya bil metelno kale imika employee salary oo kale malaayiin qof oo employee ay isku salary ah kadib wixii isku salary ga oo dhan mid ka soo qaadanaya isla markaana mid ku iska dhigaya waxaan ka saaraya duplication ka oo distinct mid ay ka soo qaadanaya wixii duplicate ah oo dhan bal tusaale ay ka soo qaadanaysa isagana ku saabsan distinct markaan wada halkan nimaadno soo doorano database keeni baro ahaa distinct waxaan ku soo qaadan doonaa table keeni ahaa TPL employee table keeni TPL employee waxaan ugu jiraa 7 row hadaba halkan waxaan ku aragnaa in department ID oo midkiiba dhowr jeer soo noqday kadib waxaan doonaynaa inuu department-nadan ku apply karayno distinct oo ah inuu duplicate ka saaro kadibna uu wixii isku mid ah oo dhan ka soo qaato hal balayno tusaale ka soo qaadano kuna apply karayno waxaan leenahay select kadib waxaan qoraynaa column kan aynu u baahanahay ee ah department ID kadib qows aynu ku xidhanaa from baynu leenahay TPL employee saasaynu ku isku gareynaa guurigan markaa table-keeni employee-ga waxa laga soo qaato maxay toolay column-kii ahaa department ID saarkan noogu muuqata haddaba balayno distinct ku apply karayno isla markaana aynu aragno maxsuulka inoo soo baxa waxaynu qoraynaa select kadib waxaynu qoraynaa distinct kadib waxaynu qoraynaa column-kii aynu u baahnay inaynu distinct kan ku apply karayno oo ahaa department ID kadibna qows karayno ku xidhanaa from baynu leenahay TPL employee kadib saasaynu ku isku gareynaa guurigan wadaagtaan dhammaan department IDs-kii waxa laga soo qaatay mid oo macnihii waa laga saaray duplicate-kii halkaas aynu joogay 10 keeni ku saabsanaa distinct. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.